gabadh aad u qurux badneed hanaan wacanna Ilaahay ku manaystay ayaa waxaa la sheegay inuu aad uga helay nin ay meel isku arkeen. Ninkii aana aad u la yaabay gabadhan quruxdeeda iyo qaabku Ilaahay ku sameeyey. Ninkan ayaa isku dayay inuu gabadhan xiriir la sameeyo si uu ula sheekaysto, balse marar badan ayay ku gacan saartay iyadoo ka diiday in ay hadal la furto. Ninkii ayaa wado walba u soo maray siduu mar ku heli lahaa gabadhan, balse adoonta Ilaahay ku xiran quruxda lagu manaystay ayaa go'aankeeda ku adkaysatay iyadoo fursadan u diiday inuu ninkan u soo dhawaado. Ninkii ayaa go'aansaday inuu kufsado gabadhan oo uu xoog wax ugu qaato, maadaama uu xeelad wax ugu waayay. Wuxuuna xoogay gabadhii oo aan raali ka ahayn, wax walbana qasab ayuu ugu qaatay. Balse arrinka la yaabka leh ee qalbigaaga dhaqaajin doona ayaa ah arrinka ay gabadhani ku dhaqaaqday intii uu ninkani howshiisa sii watay. Gabadhan ayaa aragtay in ninkani ka xoog beediyey, wax ay samayn kartaana aysan jirin. Waxayna ku fikirtay wax ugu dhow ee gacanteeda gaarto inay soo qabsato, balse sheegii ugu dhawaa ayaa noqday dab shidan oo meel agteeda ah yaalay. Waxayna gacmaha la gashay dabkii ayadoo gacmaheeda u bareertay inay gubto. Ninkii ayaa howshiisa dhamaystay, balse markuu ka istaagay ayuu la yaabay ficilka ay samaysay gabadhu iyo sababaha ku dhaliyay inay isgubto. Wuxuuna weydiiyey maxaa sababay. Waxayna ugu jawaabtay, markii aan arkay inaad iga awood badisay oo aan haynin wado kale oo aan isaga kaa celiyo, waxaan go'aansaday inaan gacmahayga gubo si aan kuu dareemin dembigaagana aan kuula wadaagin. Arrinkan ayaa la yaab iyo dhakafaar ku noqday ninkii, balse ficilka ay samaysay gabadhani ayaa noqday tusaale cajiib badan qalbiga qofka muslimka ahna dhaqaajiyey iyadoo ay habboon tahay in lagu cibro qaato.